runtii wacan oo wanaagsan daawadayaal idinkiiba meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo shabakada wararka ee mahiganews.com ay idinka soo diyaarisay barashada deegaanada ay ku duugan tahay taariikhda aabayaashii hore ee ummadda Soomaaliyeed oo khaas ku ah gobolka Sanaag gaar ahaan daawadayaal waxa barnaamijkan markii ugu horeysay uu si toos ah idinku daafuraya si aad uga ogaataan goobta uu ku duugan yahay Allah u naxariistay qabriga ama xawaalka Sheekh Gurgure madaxweyne dir oo kamid ah qabaa'ilka Soomaaliyeed ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya qabriga Sheekh Gurgure oo ku yaala deegaanka beeralayda tuulada Gugur ee waqooyiga degmada Argabo ayaa waxa dhawaan halkaas gaaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka Soomaaliland Maxamed Sheekh Umar iyo wafdi uu hogaaminayo oo hawlo la taxalluuqa dhanka dalxiiska ku mariyay qaar kamid ah goobaha ugu bilicda iyo muuqaalka dheer Soomaaliland iyo waliba dhanka taariikhda ummadda Soomaaliyeed waa deegaanada taariikhiga ah ee Gugure iyo Shumax oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Argabo ee xarunta gobolka Sanaag أنا واحد كل سنة في ماني marka halkan qalcad baa ka dhigi jiray tabeelna beertan nin baali marka beerta waa laga maqnaa halkan la xaadi jiray alla bariga la dhigi jiray qabrigana waxa lagu sameeyay jiray xasas ya inta heeb kala cun baa ku dhigi jiray yaa ku aasan marka qabriga ku aasan gurgure waa sidaan odayadii noo sheegeen xawaashi Gurgure Gugur baa la yahay waxa loogu bixiyay baa la xawaalka marka odayada hore weey waxay yiraahdeen xawaalka wuxuu ahaa Gurgure waxa dabadna saasa Gugur loogu Gurgure madaxweyne dir imisa ma ka taqaaneen inuu Gurgure yahay sheekhan anagu dee waa u garaacsanay waa eerkayagii kaayagii anaga na dhalay waa anaga noo sii